ballanka haddaad ka baxdo waa weylak. weligii nin saaxira oo liibaanay ama adduunyada magac ku yeeshay ama hanti buuran ku yeeshay ama maamul iyo maxaan ku dhahaa madaxnimo ku gaadhay lama hayo. isaga unbay ku gaar tahay fasahaadka iyo xumaantana dadku gaadhsiiyaa. qiso yaroo kooban oo mararka qaarkood aan ka warramay. waxaa jiri jiray magaaladan ku noolaa nin odaya oo faroole la odhan jiray oo riyaadiyaadka aan kuu sheegaya bannaanka ugu baxay 40 cisho ayuu diyaargaroobay inuu riyaadiyaadkaa sameeyo. nin weyn buu ahaa, nin aad iyo aad hilibka u jecelna wuu ahaan jiray. meel milyan bini'aadmiba u dhoweyn buu iska degay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa reer guuraya ayaa halkii uu riyaadiyaadka ku waday soo agdegay. ilaa 30 maalmoodna wuu wadaa riyaadiyaadkii iyo shirkiyaadkii. reerkii neef bay qasheen. dabeedna siniintii baa ku soo baxday, udugii hilibka ayaa ku soo baxay. nin aad iyo aad haddii alla yidhaa hilibka u jecel oo uu saruuradooday go'aan buu qaatay. wuxuu yidhi alla ilaah waxaa kuu fiican imika intaad hilibka la soo cunto reerka 40 cisho dambe inaad dib u bilowdo haddii alla ka dhigo riyaadiyaadkaagii. hilibkii buu cunay. habeenkii markuu gabalku dhacay ayaa junuud baa ku soo degtay. maxkamad baa la saaray odaygii Jibriil ahaa. waryaahe maxaa hilibka kuu geeyay sawtaan kuu diidnay ma war waan saruuradooda waan isayn kari waayay. hii ixsaan fala 40 cisho kale ayaan gelayaa riyaadiyaadka 40 cisho kale idaay aan galay may waa lagu soo xukumay. maxaa lagu soo xukumay in farta iyo suulka laga jaro. farta iyo suulka ayaa laga jaraya. yaab dhagax baa loo saaray faashay wateen ay ka jareen. bardhigi kama iman odaygii 40kii kalena biloobaa la yidhi. far iyo suulna wuu waayay. markuu 40kii bilaabay ee uu dhammaystay waxaa la yidhi waxaan abaalgudkaaga dhigaynaa aagga aad degan tahay ciidamadayada wixii ay dad dureeyaan ama ay dad galaan haddii adiga laguu keeno markiiba way yaacayaan, way ka baxayaan, warkaagay markiiba yeelayaan. intaasaan abaalkaaga dhiganaynaa. adug markaa ciddii dabiibka ugu timaada haddii alla yidhaahdo hadday junuudayada iyo ciidanka iyagu ay sababta leeyihiin inay markiiba kaaga baxaan. aaggaana iyaga u badnaa. odaygii wuxuu noqday jinnisaarihii u weynaa magaaladeeda. wax kalena ma aha, shayaadiintiiba waxay uga dhigeen abaalgud bay uga dhigeen. marka asmaadan iyo xarfahan maanta la isticmaalayo ee berigii hore dadka lagu khashiinsan jiray, lagu harowsan jiray, ee la odhan jiray xidigaha awood leh oo xidigahay kula xidhiidhinayaan, ama haddii alla yidhaa malaa'ig bay kuu soo dabrayaan oo kuu imanaysa, ama jin maarido oo kula awoodda kuu kordhiyaa laguu keenayaa. waxaasoo dhani waa faalsi iyo been. xuruuftanna ma aha xuruuf iyagu daatadooda awood leh, laakiin waa dalabaad iyo koolis shaydaanku uu ku isticmaalo cidda la rabo inay soo xaadirto. sidaasay u shaqaystaan. oo waxaa isla shaqaysta ninkan dalbaday iyo shayaadiinta. iyagu baahi bay u qabaan, mar walba way soo dhoweeyaan. ruux kastoo albaabkaa garaaca way soo dhoweeyaan. sababta oo ah wuxuu rabaa isagu inuu khalqiga habaabiyo. ilaahayna waa ka warramay tabaaraka wa tacaala. dhaar buu ku maray ibliis inaanu hal inaga reebaynin ilaa mooyaane inta ilaahay magan gashay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa kariimka ku yidhi qaal فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقال في آية أخرى تبارك وتعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وحو إلهي إنه ورمي تبارك وتعالى إن أنبياء إلهي يا مؤمنين تعدوا جود ويهي شياطين الإنس والجن وعدوا إسلام كي مؤمنين كفرا لكن إلهي وحو بلن أقاضي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أدومها إيقا هيلي ميسد ميلاد أصومرتو بلن كاسو هراء قلي إبليس إن لدى قالما مسلمين وهدي الله يراهدو وكهلو وحي وكدونيي إلهينا وحو إنو شاقي أنبياء إيا مؤمنين تبعدوا قائين إليهين كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إلهي وحوة المامي شياطين الإنس والجن إني حديد ليهين تلفوني صدران يوحي بعضهم إلى بعض ويوضح حديدان شياطين الإنس يسحروا لياشا إيوه إبليسك ويوضح حديدان وحاني وليوا كو حديدان هذا للا قرحيي أو لغو حديو لغو خيامين أيو وحمقرتدا هدي الله يلاهدو سحرك إيو معجزة عن كلا صاري كرين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وليصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون سيدا وحي أيليان أين يسوتشيتان وليصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون قلوب الحضية قلوب ضيعان وأن بروغرام لهين أيال الربائن حسب جودة لغو صدره حسب الله وحسب الشيطان باكل الجرح حسب جودة إن يكون صدران أي يكون دالان مركا باب كاسي كشقيستان وحنا إليهين أود بإليهن أود ملها ضعفاء القلوب ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون كوا صار لغو سراه سحرولا لو تغيا وحبال لو ويدينيا إن يربو سغيا qofkii baa dabadeedna in sarraxaad loo dhigayaa wixii uu ahaabaa laga warramayaa oo haddii alla ka yidho dabadeedna qofkii warbixintii la helay baa dib loogu soo celinayaa waa inagii shalay ka warrannay qaabka ay u wada shaqaystaan shayaadiin al-insiga iyo shayaadiin al-jinn waxaa wada xidhiidhaya qariinada labadan ruux kan daciifka ahoo haddii alla yidhaahdo saaxirka u yimi أفئدة الذين لا يؤمنون إيو قرينة الله الصعدة كان ساحر كأبا وضع حديدية وربحين بإيسا السينيان أكسونو نبينا عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وحكيري قف كستو بنا آدمية وأدويدا شوغا قرين باكو ستكن هل تنبا الله دياريا ما علين تودشو الماس إلا إنتو كقود قليو jin baa lagu xidhiidhiya shaytaan baa la raaciya markaasay yidhahaan yaa rasuul allah xataa anta adiguna mayaa laguu soo qorsheeyey shaytaan lagugu soo xidhiidhsaday oo ibliis uu damcay in haddii alla yidhaahdo uu ku habaabiyo wuxuu yidhi xataa ana aniga oo nebi maxameda way ii soo dirtay laakiin ilaahay baa iiga gargaaray kaygii wuu muslimay qariinka loo soo qorsheeyay nebi maxamed adi miyuu kaa maqnaanaya kaama maqnaanaya
qariinka adiga kula socda iyo qariinka shaytaanka insiga la socda waa saaxiib waxayna u saaxiib yihiin inay ku habaabiyaan ee ku haleeyaan mar allaaliya marka ay isu yimaadaan labada qariin warbixinta kala qaataan ayaa ama habarta fooxisada iska dacdaacinaysa ee alaasha rogrogaysa ama saaxirkan bunka cabaya qiiqa shidaya mid waliba intaa warbixinta la kala qaadanayo waa aamusnaanaya dabadeedna qalbigiisa lagu aqriyayaa wax allaaliya wixii warbixin noloshaada ku saabsanayd maalintii aad dhalatay baa lagu raaciyay ilaa maanta waa kaa warhayaa taariikhda tallaabo uga warhayaa wax kale ma samaynayo midka saaxirka kaahinka ahi keliya wuxuu rabaa inuu kugu khayaameeyo inuu taariikhdaada wax kaaga sheego taariikhdaadunbuu wax kaaga sheegaya dabadeedna dadkan dacafaa alquluubkii waxay moodayaan inuu kanu qaybka wax ka ogyahay markuu taariikhdaadii oo dhan uu kuu warramo ayuu odhanayaa kani wax walba waa yaqaanaa markaa waxaa odhanayaa xanuunkaagiina waan ogaanay oo taariikhda halkaasay kaa soo raacday bahashaas maalintii caynka ee haddii laydhaa mootada aad ka dhici gaadheed naxday maalintaasaa lagu soo raacay ama maalintii haddii laydhaa godka aad ku dhacdeed kuftay halkaasaa jin fadhiyeen oo lagu soo raacay haye maxaa xalaa hadda waxaa xalaa waxaa lagaa rabaa ceesaan caynkaa iyo caynkaas oo midabkaa leh ama digaagad sidaa iyo sidaas noo keen waa la qalayaa halkaana dembi baad dhobtiri wamaa uhilla ligayri illaahi bih waxaa lagu odhanayaa markaa ceesaantaasaa furdaamo kuu ah kuwaasi waa kuwa ku qadhaabta inay dadka yidhaahdaan qaybkaan ognahayoo waxaannu kaaga warramaynaa cudurkaaga iyo sifadiisa ayaannu kuu sheegaynaa qowm kale ayana jira oo iyana ku maqan inay haddii alla yidhaahdo noocyo kaloo sixira ay abaabulaan sixiradaas qaybo badan bay noqdaanoo waxaa la yidhaahdaa qaarkood waxay xariifiin ku yihiin sixriga la yidhaahdo sixra tafriiq kala dila dadka isjecel sixirkaasay aad iyo aad u adeegsadaan oo dadka rufaqada ama saaxiibada ama shurakada ama isqaba ayay u sameeyaan sixir lagu kala kaxaynayo sixra tafriiq baa la yidhaah sixra tafriiqa ah waxaa soo hoos gala sixir kale oo la yidhaha sixra rabd oo farsamooyinka ay adeegsadaan oo ay rabaan inay qoysaska ku kala kaxeeyaan reer isqaba ayaa waxaa loo samaynayaa sixir la yidhaahdo sixra rabd marka labadaasi isku meel bay ku socdaan sixra tafriiq iyo sixra rabd waana sixirka ugu badan ijaabada ee had iyo jeer sixirka inta badan ay sameeyaan kaasaa u badan waana sixirka ilaahay qur-aankiisa ku sheegay subxaanahu wa tacaala yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjih sixirka sixru tafriiqa ayaa ugu ciidan badan oo ugu dalabaad badan oo ugu ijaabo badan laba ruux ama nin iyo naag isqaba ayaa la kala eryayaa xasadan min cindi anfusihim waxaa sidnima uun waxaa laga yaabaa qof aydnaan weligiinba haddii la yidhaahdo sakaaradu way cabtaa iyo ma cabta aydnaan isugu iman ayaa ladnaanta reerkaaga ka xanaaqaya farxadda gurigaagu ka xanaaqaya waxba hadda iskuma haysataan wa min shari xaasidin idaa xasad wuxuu u tegayaa shaydaankan haddii alla yidhaahdo dadka kala kaxeeya wuxuu ku odhanayaa waxaan rabaa qoyska inaad kala dirto ood kala kaxayso lama isqaba dabadeedna wuxuu ku odhanayaa waayahay waxaan kaa rabaa ninka iyo naagta magacyadooda iyo magacyada hooyadood inta badan sixirka ay xidhaan wuxuu ku xidhmaa magaca hooyada ii keen kii baa loo geynayaa wixii buu abaabulayaa dhisayaa xidhayaa dabadeedna reerkii ladnaa ee is-ogolaa ee isfahamsanaa ee danta isku ogolaa ee isku faraxsanaa ayuunbaa fii khilaal 24 saaca 180 digri uun wareegaya reerkiiba haddii alla ka dhigo
isma fahmi maayo siyaabo badan buu markaa adeegsadaayo marka uu rabo inuu reerka kala diro mid waxay sameeyaan mararka qaarkood ciidan buu dirayaa wuxuu leeyahay wiilka iyo gabadhaasi markay isu soo dhawaadaan kana sanka u saara wax qadhmoon kana sanka u saara wax qadhmoon wiilkii wuxuu moodayaa naagtu inay urayso gabadhiina waxay moodaysaa ninku inuu urayo inta hore la iskula soo dhici maayo oo waa la kala xishoonaya war maxaa kaa uraya midna odhan maayo laakiin mid waliba wuxuu ku dadaalayaa inuu gogasha meel gaara dhigto ileen ur baa taalo qaar kale wuxuu ku yidhaahdaa labada mid ahaan ama labadoodaba suuradda iyo midabka iyo muuqaalka ka xumeeya ibliiskii la soo diray ayaa haddii alla yidhaahdo gabadha ayuu wuxuu soo hormarinaya wejigeedii waxaan khaakhda la yidhaa ma aragteen ayuu wejigeedii soo hordhigaya xagga hore ka soo dhigaya ninkii gabadhiiba arki maayo khaakh buu arkaya wax balaayo oo geesa shaytaan leh ama gabadhii ayaa waxaa looga dhigayaa ninka wax balaayo oo haddii alla yidhaahdo khaakh laga cabsado ah way firdhanaysaa waxaa suurtagal ah in uu adeegsado inuu gogasha ku kala kaxeeyo labadii ruux waxaan uga jeedaa ninku safar buu ku maqan yahay mar allaaliya marka uu telefoon soo duridha waan soo socdaa waan imanayaa baa dhiigaan cir iyo dhultoona jirin baa laga furayaa gabadhii dhiigba ka daahirsan mayso ninkii waa imanayaa gabadhii oo dhiiggii xaydka aan ahayn ayuu ugu imanayaa intuu joogo fasax yar buu soo qaatay bil iyo wax la mida bishaasoo dhan gabadhii daahiriba mayso haddii aanay shareecada aad u aqoonna haddii alla yidhaa labadii ruux way kala maqnaanayaanoo de xayd bay moodayaan waxa keliyahoo haddii alla yidhaa wada noolaanshaha maanacana waa xaydka caadiga oo 6 maalmood ama 7 maalmood ah ma dhoofay ninkii gabadhii dhiigba isku arki mayso gabadhii dhiigba isku arki mayso si kale way sameeyaan qaarkoodoo hadallada ay labadu isleeyihiin ayaa haddii alla yidhaahdo la isu wanjalaa hadalladu unbay qofkii dumarkaa dhibsanaysaa ninkiina wuxuu moodaya hadal caadiya inuu yidhi iyo cakiska war adigu waxba yaana hadalkugu daalinine rabdigaa ama tafriiqaas labada noocba waa nooc sixirka ka mida